بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رمضان كريم waxaan salaamaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto anagoo ku hadlayna magaca Northern States of Somalia ama marka Soomaaliya la yiraahdo gobolada waqooyi ka soconna oo ka tirsan waxaanu shirkan jaraa'id maanta u qabanaynaa inaanu la yaqaano ururka waa la yaqaan xisbiga waa la yaqaanaa ururkayaga laakiin inaanu ka jawaabno shalay Muuse khudbadii uu jeedinayay oo maalinta beenta ah oo bugta ka jeedinayay sida Soomaalidu la socoto ka dhirigsan tahay Soomaaliya marbay xorowday 26 Juun 1960 iyo First July 1960 ayaa labadii gobol ee Soomaali ee gumaystuhu kala haystay midoobeen oo suna yimaadeen xorriyadda Soomaalida wiiga toddobaadka xorriyadda Soomaalidu waa 26 Juun 1 July 27 Juun oo iyaduna Djibouti xorowday marka maalmahan uu sheeganaya waa maalmo kooxo ay samaysteen ku soo duulay wadanka midnimadii Soomaaliyeed dhantaalay waana taariikh madow bar madow oo ay sameeyeen kuna qornaan doonto taariikhda ugu qornaan doonto Muuse Biixi koox buu xukumaa qowleysata dadka waqooyi degani waa midnimada Soomaaliyeed bay ka mid yihiin israaci Soomaalidu ay israacday 1960 baana rasmi ah oo referendumka iyo codka aftida Soomaalidu isku biirtay dadka Soomaaliyeed waa hal qoys maaha reer dad la kala jarjari kara maaha dad maamul loo samayn karana maaha waxyaabihii ay sameeyeen Abasiiniyanku ee ay ku samaysmeen maamulada Puntland iyo Somaliland waa dhamaatay waxa la gaaray waqtigii dawladda Soomaaliyeed oo xoog leh ay iman lahayd waxa la gaaray waqtigii midnimada Soomaaliyeed ay dhab noqon lahayd nimankii ku hadrayay ama waxa ka shaqeynayna waxaanu leenahay taariikh madow baad dhex fadhidaan waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed dawladda federaalka u sheegaynaa beesha caalamka u sheegaynaa Muuse Biixi waa shakhsi kamid ah dadka waqooyiga dega keligii lagama hadli karo masiirka dadka waqooyi halkan ay iman doonaan aqoonyahankooda waxgaradkooda isimadooda iyaga lagala hadlayaa waxay tabasho jirto tabashada sidii lagu dhameyn lahaa dadka waqooyi degan waqooyi Soomaaliya tabasho wax ka badan ma qabaan taasna waa la xallin doonaa dawladana waanu ku faraxsanahay guulaha ay gaadhay iyo maxaa la sida fiican ay u shaqeynayso waxaanuna dawladda mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad u sheegaynaa iyo beesha caalamka iyo maxaa la yiraahdaa hay'adaha caalamiga u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed isu soo noqoshadooda iyo wada ahaantooda iyaga lagala hadlayaa isimadayada anaga iman doona iyaga ka hadli doona qol lama geli karo madaxana looma buuxin karo waqtigii way soo dhaaftay koox yar intay dadka meel ku xirato ay oran jirtay ana in charge ana xukumo ma xukumo dadka waqooyi degan boqolkiiba 90 midnimada ayay doonayaan taasi taa weey waxaan kaloo doonayaa inaan u jawaabo ninka la yiraahdo Cabdikariin Guuleed oo wasiirka arrimaha gudaha ka soo noqday Soomaaliya oo ku fashalay oo wasiirka maxaa la yiraahdaa soo noqday amniga oo ku fashalay oo loo dhiibay galmudug oo ku fashalay oo shalay qorayay waxaan u hambaliyaynayaa waqooyiga Soomaaliya horumarka ay gaadheen xaq uu ka ogyahay wax la yiraahdo xog laawe xaajo waa dilaa wixii lagu diray baad ku fashilantay waqooyina waxba kala ma socotid dawladdu cambaaraynayay oo laha waa inay la hadashaa lala hadli maayo Muuse iyo maamulkiisa qowleysatada ah intaasaanu doonaynaa inaanu halkan ka sheegno waxaanu leenahay Ramadaan Kariim ciid mubaarak insha Allah ciidkiina waa soo dhow yahay bahda saxaafadana waan u mahad celinayna